xaaladaasaan ku sugannahay dawaqaan saarannahay oo fiirsanaynaa barnaamijka ka jira xaafadda Meefer ee Johannesburg ee Soomaalidu degto. marba haddaad taatarka soo aragtay ha iga shakinin. dhowr jeer waxaad iga codsateen ninkan xogtiisa inaan idin keeno. haddaba waxaan kuu sidaa cod iyo xogo kale oo dheeraad ah ayaan kuu sidaa. balanteena waa kun like. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي هالك يا داون يسوي يوتيوب جنال كأنه أسد جاني أنا أقول صاحبك الصومالي أسد جاني هذا تاي صاحبي يقول عصب يوتيوب سبسكرايب إنه صار مقال كان لايك جري صاحبي جالسون ميل لورجارو عرفت هذا قيمتكم أنت تقولوا سو ذاك هذا لهمين والبركة وحكذا وتن صاحبي الوحيابي وقدم بي أرماء بالشدة أبريد كهاي مقال حساب بدنا نسوي إذين فصيح دنا صاحبي هاي المامنين المقال كلايك تيسا let's go أسيكي لعبة هذيك مقالة maanta xaaladaasaan ku sugannahay dawaqaan saarannahay oo fiirsanaynaa barnaamijka ka jira xaafadda Meefer ee Johannesburg ee Soomaalidu degto. marba haddaad taatarka soo aragtay ha iga shakinin. dhowr jeer waxaad iga codsateen ninkan xogtiisa inaan idin keeno. haddaba waxaan kuu sidaa cod iyo xogo kale oo dheeraad ah ayaan kuu sidaa. balanteena waa kun like kun share. markaan bilaabay ololaha kun like kun share waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noo suurtageliyey inaan howlgal ballaaran ka sameyno caasimadda. wax lasoo qabtay waad aragteen. wax fakaday iyo wax dhuumasho ku jooga ayay noqdeen qoladani qoomuluudka ah anshax xumada ka waday sumcad dilka ku hayay caasimadeena sharaf xumo u soo jeedinaya diinteena dhammaanba inay carar ay ku jiraan maqnuudkooda weynaha taa soo wada baxeen kuwa weynaha taa soo wada baxeen balse mar waliba Soomaaliya waxa isweydiin jirteen ninkan muxuu mar waliba u taageeraa qoladani qoomuluudka ah munaafiqiinta muxuu u taageeraa qof walba isweydiin jiray ninkan odayga ah muxuu dhanka xumaatada mar walba u difaaca cadeyntiisa waa kana ila dhageyso feminist أنا يا جماعة وحاس only feminist وماشي كجرانا طبعا انا متضامن مع اخوي اللي قبل شويه اللي قال هو نسوي يعني waayahay intaan igu ekee jawaabta waa hesheen Soomaana hadda kadib ha isweydiinin ninkan inuu yahay qoomuluud shakiyuu kaa gelin maxaa ku soo hara marka dhammaantooda feministiinta waxay ilaahnimo u aaminsan yihiin hooyadoodna ay u aaminsan yihiin duqdan aad u jeedaan duqdan ma laga taaban karo ahey fiiri gabadhan la wasfiir waad aragtaa umeena Soomaana way soo dhigatay way jecel yihiin aad iyo aad waalidkooda duqdan ay ka jecel yihiin ilaahigoodna gabadha duqdan ay ka jecel yihiin maxaa ku saar raxma gabadhan la yiraahdo fiir raxmadan laakiin Itoobiya joogtaa raggaas Itoobiya waa carartay reer Jigjiga waa maqluusin gabadhan hadday idin timaado aad aragtaan iska qabta waa kaniisad weyn maxaa ku soo haray gabadhan kal fiiri Rashida Taafir waa aragtay Soomaana gabadhan kal fiiri qadra la yiraahdo qadrana fiiri وجعلهن تتنقلنا فيري وبديهن هذه وني سو بندقه عندها بسوي marka duqdaasina lagama taaban karo qof walba duqdaas aku aragtid waa oga hada way tirtirayaan already laakiin ani waa idin ka shaqeysanay ama barfaalkin xirta ama tirtira already waa haystaan maxaa ku soo haray marka maqnuudkani Abdinasir Zool la yiraahdo wuxuu marin hawaabiyay wiilkaas oo Nairobi uu ku arkay bal hama asna ila dhageyso Hello, Jogaman, my dear brother. Welcome to Nairobi. Thank you so much. You're doing a great job. wiilkani markuu halkan uu ku qabtay kadib wiilkii sidoo noqday fiiri saddexdii sano ugu dambeysay soo dhaafay nolosheeda aad bay isku bedeshay maskaxiyan farmashu wake nacad Allah ku guriday marka ninkani wuxuu ka tirsan yahay qolada faafisa qarashkana ku bixisa afkaarta qoomuluudka sidoo kale ninkan wuxuu aad u taageeraa qofkan la yiraahdo meeshan idinka muuqdo ayuu aad u taageeraa kan wixii siya waaba ogtiinbo kan wuxuu yahay waaba ogtiinbo okay marka insha Allah way sii socon doontaa waa wada fahan dhagarta qarsoon shayaadiinta insha Allah muqdisho howlgalkiisa wuu ku bilaawday laamaha amniga oo macalin Mahdi
uu hogaaminayo saraakiishiisa iyo dabladiisa aad iyo aad u mahadsantihiin shacabka Soomaaliyeedna waxaan ka codsan lahaa inaad garab siisaan laamaha amniga booliska inaad la shaqeysaan wax walba aad aragtaan gabar kasta oo la raadinayo wanted ah meel alla meesha ku aragtaan fadlan si uu dhaqsiyaha badan ii soo gudbiya ama waca 991 insha Allah meel kasta aad wax ku aragtid wac lambarkaasi waxa jooga dad walaalahaaga dad oo yani diyaar u ah in ay wax ka qabtaan wax kasta oo dhibaato ah insha Allah si wada jira aan u soo horjeesano qoladani qoomuluudka oo raba inay surad xumeeyaan magaca Soomaali inay surad xumeeyaan magaca caasimadda inay surad xumeeyaan dhaqanka iyo diinteena inay surad xumeeyaan si wada jir ah aan dagaal ugu soo horjeesano inaad baasaboorka Soomaaliya ee buluuga inaad ku tagtay UK inaad ku tagtay waxa ku cadeynayaan ku sheegaa baasaboorkan ana iska leh waxa ku qoran exit inaan South Africa ka soo baxay aa ku qoran waa soo duubixtaa deebka iyo wixii dhan iyo airportka ka soo duulaa ku qoran meeshaasna waxa ku dhagan intari inaan Kenya soo galay oo aan Kenya si sharci ku soo galay labadu waa kuwa ku qoran yihiin baasaboorka Soomaaliga ah ee Federal Republic of Somalia ku qoran horta meesha aad hadda joogto ku tagtay adduunkana kaasa laga yaqaana laga aqoonsan meesto hatta baasaboorka ku tagtay waa soo qabanay waana tuse saa anigu ku tusano tuse hatta baasaboorka ku tagtay waa baasaboor South African kaas ani aan haysto kayga Soomaali moo iyaala leesinka ka sheekeynaysid asoo international ah waa ka wajigay asoo international ah waa leesin South African 14 sano haysta 14 years haysta leesinkaas shalay leesin qaadatay waa international adduunka oo dhan meeshana waa gaar ugu wada labadaas taas xagaan ka dhahay waxaad rabtaa inaad fuusto riixid oo ah dawladda Soomaaliya inay qabiil wax ku qaybsadaan adoo hal dawlad oo hal qabiil ah marka la kugu cilnaya repeat marka la kugu cilnaa adoo hal dawlad oo hal qabiil ah waxaad rabtaa inaad ka sheekeyso soo dhaw Yaasiin waxaad rabtaa inaad ka sheekeyso in gabar ay dawlad dulmisay ee dawlad xirtay every single day dhalinyarada xirtiin wariya nina waxaan nin ilma iidaran haysto Coldoon Cabdimalik Muuse Coldoon soddon sano ni xirnaa cimrigiisa kala barobar idinka qaadateen ya waxaan rabtaa iga sheekeyso dawladda Soomaaliya waxay ka xaq gar ka gashay gabadha qalad way gashay dawladayna qalad ka gashay haddaad adiga leedahay naaska biika daayo ilmi naaska ka dooyo ilmo yar yar jiqaa ilmo heesataa shala markii qaladka galaysa ilmo weeysatay markii dawladda qaladka galaysa oo kiiska lagu eeday lagu soo eedeynay ilmo waqal weeysatay haddana gabadha waa la soo deynaa waxay way soo mareen waxa loo kala sameeyna waxa la lahaa sideedaba weesha qal ma isaqal weesha ku qus qaadatay gabadha loo madan laha dulmina loo ma geysan laakiin kumanaanka kale adiga oo kale fuustada soo riixayo inuu ku qus qaataan darteeda gabadha loo xiray wayna soo bixi gabadha cid ku faraxsan hooy ilmaheeda in la kala geeyana ma jirto fuustana ay riixin ani laakiin gabadha gacan wuxuu ku jirtaa dad muslimiin oo dad muslimiin calaaqad la leh ee gacanta diiwaan calaaqad leh ku jirto ما قان مركي ugu dambeysay muuqaal sidaan iyo xanuujiya amaba dareenkayga u bedela muuqaalkan saaxiibayaal internetka ayaa lagu faafiyay waana muuqaal aad xanuun badan xaqiiqdii oo muujinaya sida siyaasiyiinta Soomaalida aanay damiir u lahayn markale ayaan ku celinayaa sida aanay u danqanaynin oo bilaa damiir ay u yihiin siyaasiyiinta Soomaalida badankooda obviously laga yaabaa inay jiraan dad weli naxariista oo weli damqado oo weli xishooda oo diin iyo iimaan leh oo anshax leh muuqaalka wuxuu ku tusinayaa sida sidoo kale siyaasiyiinta ay ugu aradan yihiin anshaxa iyo xitaa bini'aadantinimada intuba waa wasiirka I think beeraha hadda Xayr Maarey in ka badan 20 sano ayuu ninkan dowladnimada ku soo dhex jira oo dhowr wasaaradood ayuu soo hogaamiyay in maanta uu gabadhan yar sidaan ugu jeesjeesano waxay ku tusinaysaa in aanu waxba ka baran oo uu meeshaasi iska joogay oo damiirkiisa iyo shakhsiyadiisa aanay waxba iska bedelin bal muuqaalkan ila daawada saaxiibayaal aad baan ugu xanuunsanayaa saaxiibayaal sida ninkan weyn ee wasiirka sheeganay uu la dhaqmayay gabadhan yar ee ma damaanad qaadnaa talo ma kafaala qaadnaa waxbarashadeeda ya هذا السكول ما دقتها السكول كده دقتها this painful صاحبيال وح لقى حشوذا وقف وين
oo ilaahay damiirkii ka qaaday iyo dadnimadii iyo binaadamnimadii iyo naxariistii ka siibay gabadhaas sidaa yar ugu jeesjeesayna obviously waa gabar uu mas-uul ka yahay oo uu dowladda ugu jiro haddii uu yaqaan okay guys waxaad iga caawisaan haddii idinku jiro qof yaqaana gabadhan iyo magaceeda maana sheegin obviously iskuulka ay dhigata qof yaqaana haddii uu jiro please hal igu soo xira Abjirsho waxa uu ballan qaaday gabadhaasi waxbarashada inuu bixin doono marka please haddii aad taqaanaan gabadhaani ama cid taqaana aad taqaanaan ama iskuulka ay sheegtay aad taqaanaan haleela soo xiriiri saaxiibayaal I'm gonna support her aniga bixinay iskuulkeeda I'm gonna sponsor her education inshallah dualeed marka please haddii qof yaqaan uu jiro saaxiibayaal haleela soo xiriiri gabadhaasi Soomaaliyeed ee maskiinta ah ee caruurta ah ee sidaas loo bahadilay haddii uu Xamza Cabdi Barre wasaaraha Soomaaliya daawanay muuqaalkan waxaan dhihi lahaa kaasi shaqada ka ceeri walaal awada saaxiibku Soomar hay jamna ku noqon kara ma toorade hay wayna saawin lacdo fariiqa hay inta xaasa ku noolaa been saawid hay ana ormi Soomaali waan alagalaan hay ana alagalu ku yimana garuuba hay waxa ka baxsanay hooyada wayna saaway waa joonastookin hay birbiridda ku noqonaysa sax oo imaka ilaa halkaas ilaa berberaas la luga saxamiya waxaad unta ma haystaa waxa magaalada Hargeysa ka saaray saaxiib berbere xilliga iyadoo 5 galabnimo aad u lugeynayso berbere magaalada biraado inta leego daayar saaxiib anu saabe faraafta baqal yaro ka saajeer hay faraafta baqal berbere hay shada isla socon hay leeba kharsiyo leeba saaxiib hay ولا تبقى ما يبغى habeenka kaliya suuqa qabto hala hey wala khayr wal ma anta ma sha Allah kuma ana la markay ku qoray oo maxaan ku oray ma kiitigta qadaa kuma alla ki carwada hada kuma taa ما كيل لعب يقول حاجة ورده اسكروا يقول حاجة ورده اسكير علي هتاكم الدنيا دي إلهي والله أنا كوري